وايهي خلي هذا قد نقولس عبشرة وحتى يزقري كتر سعيدين كحوجة كسر بقولي قيب كمان قبل الشمال الكعبنا يحقوق الآن أنا جو إني مدحت القرن كأي شيكتي إن حقوق ذي أزقري كسر شقدي حقوقي سو هاي أذيك أهانت هذا ما أذيك كلية ذي كم قنت أما سعيدين كوكل من سعيدين كأمان وأي كم قنت حقوق السيا مجرد أجاد دي أو رجالو استاف كيس أنت سيا العقد يرادو إذا كدفاع وقبيل لما نسينايو قبيل ليه يقولون كيس بشيء والله تعرفوا أسقى هو قبيل يريد إنه فدرالي كل سنة أوكي شخصيا أنت ما كان كانوا رجالو فهاي محمد عبد الله فرماج مدح بينها الصومالي أجاد إن شاء الله إن أسكري ما هين ما أنت قبيل منك أجاد لكن هو نوش شيء إني أسقى أي عاطفة قبيل أي كل جرته إن شاء الله يمد بينه وبحر أجاد لكن وحنا شيء برلمان الفدرالي الصومالي يكون يسكري أسقى على قبيل ولا حساب ما حد ugu baaqaysa baarlamaanka federaalka Soomaaliya maadaama asgari qorraxdan taagan qabowgu ku dhacayo dhibaatooyinka kale ee rasaastana ay ula mid tahay ma xad ugu baaqaysa baarlamaanka federaalka Soomaaliya baarlamaanka federaalka waxa uu baaqaa in ay la xisaabtamaan wasaaraha propagandada iyo qabiilka uu nagu sheegay qabiilna mani ilaa iyo shariif Ahmed ilaa hadda taaganay wasaar wadanka ka ahay farmaajo maanta waa madaxweyne هذا على غير السنة يسوي منه وما أنت يرادو وقبيل عينه أجد وبروباغندا وقلب دفاعيا تاجنا حتى لما إلا يقولون تاجناني أجد marka waxaad leedahay waxaad u baaqaysaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya inay la xisaabtamaan xukuumadda maanta jirta propagandada iyo beenta uu been abuurka u wado marna uu leeyahay waa qabiil marna uu leeyahay ciidanka agtiisa waxba kama jiraan beeraley dukaanley hay idinka naftigiin waxa idinku inaa hoteelo wardiisaan amba aad dad adeeryaashiina aad la socotaan sida wasaaraha uu sheegay arrinkaasi maxaad ku beeninaysaa waxaan ku beeninaa taas indhahaaga u jeedo meesha aan taaganahay ma ahan hoteelna ma ahan in adeerkayna la mid difaaci qarankan taaganahay gaadiidkan nafa iman Muqdisho waa mid kamid ah gaadiidka dagaalka ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaasoo maaragtay mushaar la'aan darteed uga soo baxay furmihii difaaca ay ugu jireen iyadoo dawladda ay maaragtay ay ku eedeeyeen in mushaarkoodii ay musuqmaasuqday sida ay hadalka u dhigeen balse ayagu ay go'aansadeen haddii dawladdu ay mushaarkoodii ay inay dhiibto sheegtay ayagana aysan qaadanin inay isaga soo faarujiyeen dhammaan wixii halkaas ka dhacana ay qaadi doonto mas'uuliyaddeeda madaxda ugu sareyso dawladda federaalka Soomaaliya oo ka mid yahay ugu horeeyo taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre iyo golaha shacbiga ay kala dul dhaceen iyadoona sheegeen in ay gabeen la xisaabtankii xukuumadda sida darteedna ay ay dusha ugu tuurayaan haye ma asgarta cid la hadli kartay ma jirto إن أفر عمر استاذ كذا دول عكسي ولا إذا كقرن كالعقد وسينا ما أنت حين هيا الله حساب تمضي حتى لو حنك عصنا برا فدرك وارد تسكت الوزراء wuxuu sheegay musuqmaasuqa inuu la dagaalamo musuqmaasuqa oo ka soo maartay shaqaalaha riidka oo ka soo cirib tiray haddana rabo inuu ciidanka meesha ugu dambeysay ee musuqmaasuqa laga cirib tirayo maartay ay tahay arrinkaasi ma xad ku beenaysaa waxaan ku beeninaa musuqmaasuqa inuu asaga saldi ku yahay afar cumar استاذ كذا madaxweynaha kan cagtiisa uu yiraahdo ku sawir media soo istaago oo yiraahdo lacagtu waa si ciidanka qaranka iyo kuwa boolis oo asaasi qaas aan oo lacagta oo salliga ugu siiyo adeed oo lacagta xoog dalka uu qaybiyo adeed haye waa mid kamid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed magacaaga maxamed xasan fariisinkaagu ciidan halkee ah jawhar hadda waxaan joognaa qaybo kamid ah degmada Balcad maxaad uga soo baxday fariisinkaaga ciidan ee dawladdu kugu ogeyd maxay tahay dhibaatadaas mana la wadaagi kartaa
دولة الصومالية waxay sheegtay in xuquuqdiinii ciidan cid alaale cidii ku sugnayd goobteeda shaqo la siiyay adigana waxaad sheegaysaa in baahi darteed aad uga soo baxday difaac aad ku jirtay ee aad ku difaacisay qarnimada Soomaaliya taa maxaa ku beeninaysaa dowladda Soomaaliya wasaaraha oo ka mid ah madaxda ugu sareyso madaxweynaha marka uu ra'iisul wasaaraha ahay wuxuu yiri muhiimadda koowaad ciidankaada muhiimadda labaad ciidankaada wax kasta ciidankaada uu yiri si markuu ku soo fadhiistay aan ku faraxsan aad hadaan hay aan ku faraxsan hadduu madaxweyne noqday oo intii shalay inuu nooga fiicnaada aqoon dabarjab ayaa nagu meel uu noogu yimid saacadaan waxayna qof shakhsiyaad ku taagan hasa cala qayb iyo xaquuqda waxaan ka codsanaynaa inay xuquuqdaan si dhammaystiran inoo siiyo haddaan dhaawacno dowladdu nama daawiso haddaan timaadno aqoon tahayna dowladdu ma daryeesho haddii aan nool nahana ma daryeesho baarlamaanka guryahoora jijiifo $3,000 ay qaataan anigoo duurkaas jooga oo kale إن دفاعي كم فقط لا كلا كوستا يدور للضياع حتى لا يوم waxaan ka codsaa inay baahidaan degdeg ah ay soo furto madaxweynaha Soomaaliya wuxuu sheegay laakiin in aad maartay $100 aad qaran ku daaficina laakiin wadaninimo aad rabo inaad ku daaficin qaranka wadani ayaa tahay Soomaali ah qaranka Soomaaliya u maartay u taagan hadii jeer difaaciisa hadii aad xuquuqdaada weyso waa maartay wad ka soo baxaysaa furmaha ninka lacag la'aan waa ku shaqay jirnay tiyadii ku shaqay jirnay waa macnaha waana dul qaadan jirnay dalka iyo dadka anu ka askale waa u dhimahayna laakiin idin darrada laga sheegay idaacadaha oo ciidanka lacagta siinay la leeyahay anu kuna baahanahay intaas aan ugu jirnay difaaca هاي مقعد عسكري دق فريسين كاجي عيدن هالك إيه ما هداي هل ده وحنا كسوقنا هاي قريب كمية دقمة بلعت ما حد أقول صباح فريسين كاجي عيدن دولة الصومالية كوجو أنا صباح مشارلان مشارك من فوق كيسنا عندنا وحنا قلنا قصة كرامات مشارات وعنا ولا تيجي عبد روتي أنا تساك يجي أو معن كلا صباح بلعت برضو مساس مساكين روتي كذا ده سكيل كذا كلا جب صار تاكل إنه بدك يسوي ستيش روتي هاي كدير ما كيا رئيس الوزراء الصومالي وحو شيء رئيس الوزراء أنا بس بين عبد روتي كلا قصة رئيس الوزراء وحو يري حقوق ذي عيدا وان يبني وحس يبود لانوس واحد قال هنا كجري وقع أفر لا تنسى عبد الله قصة عصا وحنا قاعدين بالك إذا بدأ بود بنجوا هل أيلا كذي أول ستيشن هو وضع على العكس إذا ما يشجع جهرة كجرو جيد جهرة شبه هذا نحنا هل نموه قضية سهلة لسه غير بقول كذا لحنا كيشة أفرتنا وقا هاي مقعد عسكري علي محمد ربلا علي فريسين كاجي عيدن هالكين فريسين كاجي عيدن وحواي دقمة ما حطاي دقمة ما حطاي المحاط وقصة بعد فريسين كاجي عيدن دولة الصومالية كوجو وحنا قصة بحي أنا أفر بلاد مارك فرنا كتر سنة فرنا كتر سنة بقول يردو واسكري سجل اسكري أكاد عطل أنا قلت فعلا فوق قاجونا جوج أنت صار سلام قاجو جوج ماشي واحد بعطيك أنت عيدا كي سكور هاي أم بسكورنا أم بسكور وإحنا مشار القصيم وإحنا واحد مليشيا بينات واحد أساس راكيشة إنك نحكم يسال واحد لقدي واحد مليشيا بينات أنا تراس كورسي صباح يضرب كل يدين تروح بيسان أنت هاسبان قلت كم هاي قلت أنت هاسبان قلت كم هاي أنت قلت أنا بتاس نقول يشد قلت أنا قبضان وبان يا تسليد هم وما رفيق كاسي ويدكوا هاي أو سقاس أنا وحنو هاي سنة أنا قلت أسكر بان وحنو هاي سنة أنا رسول السلام بتاس نقول هاي أيام هاي سنة أنا أسكر تعيدك قرن ثران مدحوني محمد عبد الله فرماجو مركي أو كجري أو ليه سدورش وحو شيء إنه عيدا كدريري دونه وحو شيء يا وقت وشيء جري لا يا وقت وسارة وهذا إنه من الكيرة ديس دونه أسكر تود ديس دونه أيوة ما شيء كبر كده دبعتها أن يبور بركانية من الكيرة قال بهدلاية مشاركي شغل رصيحة قبل هذا اللي قد شيء واحد جرام عن الهاي أيوة مرسيين مركين أصلا دولة وعملنا دولة إنه واحد قبضان وبهن برلمانك فدرالك الصومالية لحال إمارتي لحسابتك الحكومة الصومالية أسيقا ما حدو باقي سنة
adiga cid walba dawladda xilka hayso amba baarlamaan ha noqoto amba wasiir ha noqoto amba madaxweyne ha noqoto amba ra'iisul wasaare ha noqoto waxaan u baahannahay xaqiiqda ciidamada xoogga dalka in cid wax ka qaban karto ay wax ka qabato oo xuquuqdeena aan bilowno dalkeena u dhigno hadda ciidanku way socdaan waxa ii muuqda gaadiid fara badan oo dagaal waxa ii muuqdo ciidamo aad lixaad aad u hubaysan meesha dhabta ah jihadu waa Muqdisho meesha dhabta ah ee ciidamadaasi ku sii wajahan yihiin bulshada ma la wadaagi kartaa baabuurtana wadano dhigado baabuur dawladdu ma jirta gaaridaas ماشي دولته جبت أيان هذا إنها دولته كشغل سنة دفاع هذا نما هو لاين أفر نما مشار هذا أن قران هذا يدنا يدعون بين أنا بدك خان ولا وين دولته ما يدفن هذه وما سنتهاي waxaa soo taray gaadiidka dagaalka ay ka soo baxay furmaha dagaalka sida aad arki kartaan waxa idin muuqda mid kamid ah gaadiidka dagaalka oo ka soo baxay qayb kamid ah fariisinkoodii ciidan kaasoo kuwaas cabashadoodu ay tahay in ay maaragtay ay tahay waa arki kartaan sida ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay u soo faarujiyeen furmoodii dagaalka ayagoo ka cabashadooduna ay tahay xuquuq la'aan halkan waxa joogo ciidamo boqolaal ah waxa ku soo aad u hubaysan qaarkood waxay ii sheegeen in xuquuqdoodii ay ka maqan tahay laakiin ay ku shaqayn jireen iyadoo xuquuq ka maqan tahay hase ahaatee markii dawladda Soomaaliya madaxdeeda ugu sareysa qaar kamid ah ay sheegeen in xuquuqdoodii la siiyay caara ka dhalatay inay uga soo baxeen furmihii dagaalka sida hore u dhacday gobolka Shabeellada Hoose qayb kamid ah oo deegaanka lagu magacaabo Dhanaane askar ka soo baxday askartii ka soo baxday fariisinkii ciidan in ay dib u la wareegeen al-shabaab waxa si weyn muujinayo gobolka Hirshabeelle waxayna aad uga cabanayaan fariisinka ciidan lagu soo baneeyay waxay yeelayaan askarta mid kamid ah oo rabo inuu ila hadlo asgari haye magacaaga عبد النور جمعالي فرنسي كاغو عيد الحبيب ربك جوع كعبنا سعد كعبنا انا كعبنا دنا عيدك حق دلك وايحي madaxda ugu sareysa dawladda Soomaaliya sida wasaaraha dalka iyo wasaaradda gaashaandhigga waxay sheegeen in xuquuqdiinii lidin siiyay intii ku sugnayd furmaha ciidan balse cid ka maqan ee jirto shaqooyin gaar ah sida hoteelada iyo meelaha la midka ay waardiyayso in xuquuqdoodu ay dhiman tahay adiga ma waxaad kamid tahay kuwa jooga fariisiga maartay ciidanka dawladda ee ku sugnaay maartay halka aad sheegtay marnaba kama soo bixin iyadoo la soo fasaxin xuquuqdeedina 4 bilood ma arag ra'iisul wasaaraha wuxuu sheegay in xuquuqdeedina la siiyay baan iyo kadaa'ibna waa kaligiis xuquuqdiga cilmiga leeyahay hadda dalka kaligiis difaaca ka difaaco anuguna waa ka soo baxan waxa dhici jirtay in mushaarkiina ay maqnaado muddooyinkii maartay la soo dhaafay dawladihii hore mana soo faaruji jirin furmaha dagaalka maxaa sababay hadda inaad soo faarujisaan waxa sababay anku marka hore xuquuq la'aan anku oo waxyaabo ay dawladda bacna markaas ay iyadu aska jirto tabarak oo ku sabri jirna hadda laakiin anku furud ku sugan leeyahay mushaarkooda waa bixinay waana siin xuquuqdooda ra'iisul wasaaraha wasiirka gaashaandhigga in iyagu ciidanka ay nabaan oo ilaahay xuquuqdooda waa siinay anku aan furud ku sugnaano intaas aan ku sabri weynaa anku ku sabri waa ma jirtaa askarta qaar kamid oo ila hadlay waxay ii sheegtay in madaxda qaranka haddii ay idaacadda ka sheegeen in xuquuqdii la baxshay ayaga iyo reerahoodii uu qalqal galay ma garan kartaa cid saameyn ay ku yeelatay gaar ah anaga kaan ugu yeelatay shakhsiyan aniga ka koobitay ku yeelatay si gaar ah oo saameyn ku yeelatay erga ay sheegeen oo waliba xataa ay ugu yeereen xuquuqda ciidanka ku bixin intaas ugu sabab badan mid kale oo gaar oo saameysay هاي حتى قرانك وانا قوس هذا عيدك هو صعدا waxa ii muuqdo gawaari gaashaman waxa ii muuqdo kuulidka diyaaradaha waxa ii muuqdo ciidan aad u hubaysan oo wajidooda laga dheehan karo cala aad u fara badan jihadu waa Muqdisho halka hadda ii muuqata meel gaar ah manushay in oo hadana nala sababeeyna inka xuquuqan ka tabeeyna oo naliyay xuquuqda ciidanka waa bixin ay ra'iisul wasaarihi iyo gaashaandhigga yirin iyagoo mas'uuliyadda inay igu hayo wadanka hadii aad soo faarujiseen furmihii dagaal ee uu dib u la wareegaan al-shabaab مسؤوليتاس يا قاضي مسؤوليتاس waxaa qaadaya ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha baarlamaanka Soomaaliya ma xad uga baaqaysan asaga baarlamaanka Soomaaliya waxa uu baaqayna iyaga mataluhaya shacabka askarta wax walba iyaga mataluhaya
إن ضل على الدفاع ما ضل ما الدفاع هدي ضدك حوالان أي دقان ضلك واحد دفاع ما لقيت هذا الشعب askarta qaar ka mid ah waxay ii sheegtay in idinku eedeeyay inaad tihiin ciidan beeleed taasi maxaad ka leedihiin waxaan ka leenahay ciidan beeled wax la yiraahdo ma jiraan tuutada ciidan beeled ma qaato gawaaradan gaashaama dawladda dhiibtay hubka iida dhiibtay tuutada iida dhiibtay waxa iida dhiibtay haday in kiraaso iida u taalaa goormee u soo qaranka inaad u shaqeyso aad bilowday waxaan bilaabay 2007 ilaa hadda waa shaqeynaysaa ilaa hadda waa shaqeeyo difaacan jooga weliga xataa iyadoo la fasaxay maana weliga difaac ma shaqo laxsan ma tihin waad mahadsan tahay kaas wuxuu ahaa mid ka mid ah askarta ee ka soo baxay furmahooda dagaalka waxa soo tarayo gawaarida dagaalka ee soo gaaray magaalada Muqdisho waxa soo tarayo ciidanka waxa laga dheehan karaa wajiyadooda caro waxayna u baahan yihiin xuquuqdoodii sida ay sheegeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay waxay ugu baaqeen in xuquuqdoodii si degdeg ah loo siiyo ayadoona maartay ku eedeeyay baarlamaanka federaalka Soomaaliya inay gabeen hawshoodii shaqo daawadaashii sharafta leh waxaan idinla wadaagi doonaa hadba daqiiqad saacad waqti walba halka ay ku saldhigato ciidankani lixaadda leh ee aadka u hubeysan ciidanku waxay ku weysan yihiin garneelada garabka laga tuuro gawaarida boobayaasha culus ah ee saaran yihiin waxay ku hubeysan yihiin qoryaha beekay amka ah waxay ku hubeysan yihiin qoryo kale ee maaragtay aad u culus bishu waa Maarso cadceedu way kulushahay wajiyadooda waxa ka dheehan kartaa caaro aad u fara badan ay ka qabaan hadaladii madaxda qaranka qaar kamid ah idaacadaha la wadaageen taasoo ahayd inay baxsheen mushaarka ayagoona ku sababeynayay inay qoysaskoodii ay saameyn ku yeelatay waa arrin maaragtay madaxda qaranka ay sheegtay in la bixiyo mushaarkii dawladda Soomaaliya ay bixisay inta ku sugnad goobahoodii kuwana waxay ka soo baxeen furmo dagaal qaarkood waxaan ugu tagnay fariisinkooda ciidan iyagoo ka soo dhaqaaqayo ayaan soo raacnay ilaa haddana wax xuquuq ah inaysan qaadan ayay sheegayaan intii aan wareystay laga yaabee inay ka jawaabi doonto markii ay aragto klibkani hadda jeer bulshada waxaan wadaagnaa waxyaabaha xaqiiqda ku salaysan ee bulshada Soomaaliyeed baahida ay u qabto waa idinla wadaagi doonaa saacad walba waqti walba cadceedu aad u kulul waqtigoo nahayo ciidankoo dhaqaaq ku jiro waa halkay saldhigato waa arki doonaa idinkoo aad iyo aad u mahadsan ila socda waqti walba saacad walba daqiiqad walba waad ku mahadsantihiin daawashada aad daawateen live-kayga aad iyo aad u mahadsantihiin